booliska magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan dhanka Galmudug ayaa waxay magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigeen haweeney in muddo magaaladaasi uga qaraabaneysay ama ku joogtay in ay rag tahay taasi oo la soo warinayo in xitaa ay dumar guursatay waa arin cajiib ah. ciidamada ammaanka maamulka Galmudug ayaa warbaahinta u soo bandhigay haweeney la sheegay inay iska dhigi jirtay nin taas oo in muddo ku nooleed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. haweeneydan ayaa magaceeda lagu sheegay Deeqa Cabdulaahi balse waxa ay dadka deegaanka u yaqaaneen Deeqa Cabdulaahi oo ah magac nin raga. haweeneydan ayaa markii saldhigga booliska lagu soo bandhigay hubaysneed isla markaana wadatay bastoolad. taliyaha ciidamada booliska magaalada Gaalkacyo oo warbaahinta saldhigga kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in haweeneydan ay kadib baaritaan ay sameeyeen ay soo qabteen isla markaana baaritaan dheeriya ciidamada ammaanku ay ku sameyn doonaan. waxa uu taliyuhu intaasi ku daray in haweeneydan ay magaalada Gaalkacyo muddo ku nooleed isla markaana magaca ragga ay adeegsan jirtay. waxa uu xusay in haweeneydan ay guursatay dumar kale balse arinta la yaab kale ayaa waxay tahay in wararku ay sheegayaan in dumarkaasi ay caruur dhaleen taasi oo aan ahayn mid suuragal ah. haweeneyda oo lagu magacaabo Deeqo oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa waxay sheegtay isla markaana qiratay in ay dumar tahay waxayna tilmaantay in bastoolada lagu soo qabtay ay ku waardiyeysan jirtay tukaan ay lahayd sida ay hadalka u dhigtay. saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaa waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo Deeqo oo aad arkaysaan Deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo Deeqo Cabdulaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah. waxaan ku guuleysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno Deeq oo magaciisu Deeqa yahay. baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah. ujeedada iyo danta ay kala haydna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa. waxaan noo cadeeyay ciidanka booliska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxa ka soo baxday inay tahay qof haween ah. waxani waa waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexdu ugu xirnaa. markii baaritaanka lagu sameeyeen waxa ka soo baxay in waxani ay nin ahaan u isticmaalaysay. iyada waa su'aali kartaan inay dumar tahay aniga hadda af jooga lama adeega iyada baa joogtaa. idinta liigu soo eedeeyay oo ay jidha dumar baana qofka waxaan u watay dukaan baa leeyahay dukaankan ku waardiyeysto meel koondar ah qofna kuma dilaan qofna wax kuma yeelo. gabadhan gabar cunug iyo ayadoo nafteeda haligaysa baan gurigeyga keenaan